السلام عليكم كسور دواذا كنالك عبد العزيز بورلي maanta waxaynu ka hadli doonaa imaam ibn qayyim al-jawzi magaciisu waa abu abdullah shamsuddin muhammad ibn abi bakr ibn ayyub ibn sa'ad ibn haris wuxuuna ku caan baxay ibn qayyim al-jawzi aabihi waxa uu mas'uul ka ahaa madrasada jawziya caruurtiisa dhamaantood waxaa la dhihi jiray ibn qayyim imaamku waxa uu dhashay 7 bishii safar 691 hijriyada wuxuu ku dhex barbaaray qoys cilmi iyo diin u saaxiib ah aabihiina waxa uu ahaa nin alla ka cabsi badan oo saalix ah waxa kaloo uu ahaa caalim weyn wuxuuna ibn qayyim ka qaatay aabihii cilmiga dhaxalka walaalkiina sheekh saynuddin wuxuu ka mid ahaa ardaydii ka aflaxday sheekh ibn rajab al-hanbali sidoo kale ibn qayyim caruurtiisa waxa ay ahaayeen culimo taasina waxa ay ku tusinaysaa inuu ka soo jeedo sheekhu qoys diin iyo cilmi u saaxiib ah wuxuu cilmiga horaantii ka qaatay shihaab an-nabulusi wuxuu kaloo ka qaatay taqiyuddin ibn sulaymaan abubakar ibn caadi ad-daa'im iyo culimo kaloo fara badan wuxuu kaloo luqadda carabiga iyo fiqiga ka qaatay majad al-harani ibn tayyima cilmiga usuulka waxa uu ka qaatay safiyul hind ash-shafi'i wuxuu kaloo cilmiga ka qaatay shaykhul islaam taqiyuddin wuxuu laasimay waqti fara badan waxay sheegeen culimadu inuu 17 sano in ku dhow uu la joogo shaykhul islaam ibn qayyim aabihii wuxuu ahaa mid aqoon u leh cilmiga xisaabta iyo dhaxalka uuna ka qaatay cilmigaas waxa aynu eegi doonaa culimadu maxaa ay ka dhaheen ibn kathir waxa uu ka yidhi ma garanayo qof ka cibaado badnaa caalimka wax la mid ahna ma jirin marka la fiiriyo axwaashiisa waxa uu ahaa mid salaada aad u dheereeya wuxuuna ku mashquulay cilmiga xadiidka iyo tafsiirka quraanka ibn hajar waxa uu dhahay marka uu tukado salaada subaxa kama kici jirin meesha uu fadhiisto isaga oo ilaahay xusaya ilaa ay maalintu kor noqoto waxa uu dhihi jiray tani waa qadadayda haddii aanan fadhiisanna jidhkaygu waxa uu bedelayaa awoodda waxa kaloo uu dhihi jiray sabirka iyo faqriga ayaa waxa lagu gaadhaa iimaannimada diinta waxa sheekha ka adkaaday jacaylka uu qabo sheekhiisa yacni ibn tayyima wuxuuna u gargaari jiray aqwaasha sheekhiisa al-xaafid ibn rajab waxa uu yidhi waxa uu ahaa mid u saaxiib ah cibaadada iyo tahajjud iyo salaad aad u dheer wuxuuna wehel ka dhigan jiray dikriga ilaahay waxaana lagu arsaaqay jacaylka dikriga iyo u laabashada alle wax la mid ahna ma arag mana arag wax kaga cilmi badan macaanida quraanka iyo sunnada sidoo kale xaqaa'iqda iimaanka haddaba iimaamka waa la imtixaamay marar badan waxaana lala xidhay sheekh taqiyuddin markii ugu dambaysay ee lagu xidhay qalcadda kamana uusan soo bixin ilaa uu shaykhul islaam ka dhintay inta uu xabsiga ku jiray waxa uu ahaa mid aad ugu mashquulsan akhrinta qur'aanka iyo tadabburka qur'aanka waxaana loo furay khayr fara badan imaamku waxa uu khayrka ka gaadhay meel aad u sarreysa lehna dhadhan aad u sarreeya oo saxiix ah imaamku waxa uu xajiyey marar badan waxayna ahlul makka ahaayeen inay ku sheegaan inuu ahaa mid cibaado badan oo dawaaf badan ilaa ay ka yaabeen imaam ash-shawkani waxa uu yidhi culumta oo idil waxa uu ku ahaa xariif wuxuuna aad ugu dheeraaday garashada madaahiibta salafka wuxuu yaqaanay alifaad aad u macaan kuwa wax alifa qaabka uu wax u keeno uma aanay keeni karin qofka waxa uu jeclaanayaa qaabka uu wax u keenayo quluubtuna waa ay jeclaanaysaa mana cuskanayo wax aan ahayn daliil marmarna waxa uu leexdaa madhabka xanaabilada
mas'alo kastana asal ayuu u raadiyaa wuxuuna ku dadaali jiray cadaaladda meesha uu daliilka u leexdo ayuuna u leexan jiray mana cuskanayo qaala iyo waqiila isku soo wada duubo waxa uu ahaa culimada sunnada faafiya ilaahay ha u naxariisto islaamkana khayr alla ha ka siiyo oo ha ka abaalmariyo waxa uu qabtay geeridiisii waxa uu geeriyooday sheekh ibnu qayim habeen khamiis ah 13 bishii 7 751 hijriyada aadaanka salaada cisho kadib waxa uuna ahaa 60 jir waxaana janaasada lagu tukaday jamaacul umawi aadna waa looga murugooday dhimashadiisa waxaana lagu duugay albaab al-sagiir dimashq dhexdeeda waxaana lagu aasay meeshii lagu duugay sheikhul islaam ibnu tayyima waxaan leenahay ilaahay ha u nuuriyo qabrigiisa sida uu ugu nuuriyay ummadda cilmigiisa isaga iyo sheekhiisaba intaas ayaynu ku soo koobaynaa mawduuceennii maanta